الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ولا ليال وحين اسكو حسوسنا خطبتنا ما أنت إن شاء الله تعالى قار كمدا أما بر كمدا آذابته لو باهي هي إنه كل دقنه وإنه كبر لكسنانه حق مركا وحويا والدكين وحويا ولا ليال ayagaa sabab inoogu ahaa adduunyadan korkeeda inaynu nimaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa marka laga yimaado cidda ugu mudan ee xaq inagu leh ee loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano markay nool yihiin iyo markay dhintaanba waa labadii waalid ee ilaahay naga beeray subxaanahu wa tacaala in badan bay dhacdaa in waalidku wixii xaqii uu mudnaa ee uu lahaa aanu ka helin ilmihiisa sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisa ayuu u dardaarmay inay xaqa waalidka ilaaliyaan xuquuqdaasi way fara badan tahay samafalka loo samafalo labada waalidna halka ay diintu dhigtay iyo waxa weeyaan abaalmarinta iyo jannada laga helayo walaaleel waynu garanaynaa xuquuqda markaa waxa weeyaan qofku xuquuqul waalideyn uu noqdo oo xaqii waalidka uu garan waayo amba caaq uu ku noqdona ciqaabta ay leedahay iyo magaxumada ay leedahay adduun iyo aakhiro waynu garanaynaa maanta aadaabtaynu isku baraarujinaynana waxaa ka mid a walaalayaal marka koowaad inuu ilmuhu labadiisa waalid uu shukri noqo oo ilaahay markuu u shukri noqo labadiisa waalidna uu xusuusnaado taas oo ilaahayna inoo dardaarmay an ishkur lii waliwaalidayk ilaya almasiir ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inooga warramay inuu dardaarmay iisaanka labadiisa waalid oo uu xusuusiyey rabbi subxaanahu wa tacaala xamalathu ummuhu wahnan calaa wahn hooyo waxay ku soo xambaartay oo caloosha kugu soo siday oo dhabarka kugu soo siday oo dhabta ay kugu habaysay muddo mid walba dhibiyo waxa weeyaan culays ay kala kulantay caloosha maalintii aad gashay ilaa aad ka dhalanaysay hooyadaa waxa weeyaan dhib bay kula soo martay way ku soo korisay oo intan adigoo leeg adigoo qofoo soconaya ismaamulaya ayaa waxa weeyaan weli ay markaa mar walba wanaaggaaga yay doonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay 2 sano oo nuujina rabbi markaa buu leeyahay aniga ii mahadnaqdo iyo labadaada waalid xaggaygaanad u soo noqonaysaan buu rabbi subxaanahu wa tacaala cabdillaahi ibn cumar bin khadaab wuxuu arkay nin reer yamaneeda oo kacbada ku dawaafaya oo hooyadii dhabarka ku xambaarsan oo u heesaya oo leh dhabarkayga waa markaa waxa weeyaan gaadiid hayina gaadiidku hadduu la buubo dhabarkaygu la buubi maayo sidaas ayuu lahaa saxaabigaa buu isa soo garab taagay oo wuxuu yidhi ma u malaynaysaa xaqeedii wax ka mida inaan guday wuxuu ku yidhi cabdillaahi binu cumar yacni darbad yar oo fooshiya oo ku dhufatay xiitaa maad gudin inaad xaqeedii kala guddo iska daayay xaqii kale ay kugu lahayd inaad guddo mooyaane dhibtii ku soo gaadhay darbad kaliya fooshiya waxa weeyaan inta kula weyn u dhigmi mayso walaalayaal taas waxayna tusinaysaa sida uu weyn yahay xaqa labada waalid waxaa ka mid ah xaqooda in hadalka loo dabciyo oo si dabacsan loola hadlo marka wax loo sheegayo marka wax la weydiisanayo marka lala khidaabayo in lagula khidaabo oo loola hadlo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inagu waaniyey falaa taqul lahumaa uffin
ولا تنهرهما هو يا أبو أفكارني وحكا وين إسكده هذا الدجال إسكده هذا المرن إسكده كلمة أوفا وحوين مركا أكتين عن كاهين بإلهي وديدي محاض ملي هذا الكسيوين هنا دجال بي ربي سبحانه وتعالى وحد كتلا قولا كريما قول دبع سن أو وناكسن أو بير كذا وحوين قلبي قول سوتش هذين هي كله وقت كان ولا للفتن بدن باكرة دد كدا يرتاها iyo waxa weey dad waaweyn ba waxyaalaha waalidkii u qalmin ayaa ay kala kulmayaan ka taabiciga loo oran jiray daysala ayaa wuxuu yiri Abdullah ibn Umar isagoo la hadlaaya Abdullah ibn Umar baa wuxuu yiri atafraqu min an-nar wa tuhibbu an tadkhula al-janna wa an-nar ma ka baqaysaa jannana ma jeceshay inaad gasho ha wallahi baan yiri mid walba inaga midba ilaahay helkeeda hay naga dhige jannayn walaaleel wada doonaynaa naar baynu ka baqaynaa saxaabigaasi ninka isagoo la hadlaaya waxaad ka soo qaadaa isagoo adiga kula hadlaaya wuxuu leeyahay naar ma ka baqaysaa janna ma jeceshahay inaad gasho haa wiil waa intaan doonayo inaan naar ka badbaado jannana aan galo wuxuu ku yiri ma nool yahay waalidka wuxuu la hooyaday ayaan hayaa oo markaa waxa weeyaan in nool wuxuu ku yiri fa wallah law alanta laha alkalam wa ad'amta ad'am la dakhalta aljannata majtanabta alkabair wa hada aladiyaad la yaab le walaalayaa wuxuu ilaahay baan ku dhaartay waa saxaabi nabi maxamed soo tarbiyeeyay qofka dhaaranaya kuma dhaaranayo waxaan hubin wuxuu ilaahay baan ku dhaartay haddaad hadalka u jilciso waalidka ood quudiso oo cuntada aad siiso waxaan ku dhaaranayaa inaad jannada galaysaa haddaad dunuubta waaweyn ka fogaato walaalayaal jannadii ayaa inagaga xidhan waalidkan inaanu samafallo inaan waalidkan si wanaagsan ula dhaqanno intay nool inaan ka ducaysano inay hadday naga horeeyaan u ducayno walaalayaal jannadeena ayaa ku xidhan waxaa ka mid ah walaalayaal aadaabta waalidka looga baahan yahay inaan kula dhaqanno inayna safrin haddaan waalidkiina fasaxin haddaan waalidkiina ogolaan adigoo danahaaga u baxaya xataa safar mubaaxaada u baxaya waa inaad u timaado waalidka ood weydiisato tiraa aabbo waan safraya hooyo meel baan tegayaa ood ka fasax dalabto waxaa laga yaabaa inay kuu baahan yihiin waxaa laga yaabaa meesha tegaysa inaanay jeclayn waxaa laga yaabaa inaad safarkad ku maqantay ka warwarayaan sidaa daraaddeed in laga fasax qaataa wuxuu ka mid yahay aadaabta markaa looga baahan yahay xaqa waalidku ay leeyihiin nin baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam sidii rasuulka ilaahay waxaan ka fasax dalbayaa jihaadka inaan tago oon ka qayb qaato wuxuu ku yiri rasuulku waalidka ma nool yahay ها أبو يري ففيهما فجاهد أيها كو جهاد بير أيها كو جهاد كتعب يدال يهول أيولي نفتح لقوايا تعب كا الجهاد ككب حين يسلم هذا والد كبح رسولك الصحابة يسوي يغاني وحلقة يا بينو أركيني كاين والد كي سوبا هاي أو مركا يقوم مهم سنت الجهاد كودينتا كدفاعي قال يا إسلام لا يسكن لين ayuu rasuulku ka hormariyay in waxa weeyaan waalidka waxa weeyaan loo dhawaado oo waxa weeyaan loo samafalo oo lala joogo waqtigan aynu joogno walaalayaal laba meelood ayaad arkaysaa halkaas in dhalinyaradii iyo dadku fara badani ay kaga leexdeen dhalinyaro badan ayaa waalidkoona iyagoon ka fasax dalbin ayay safrayaan soorana waan tahriibaya waan jeexayaa waxaan la kulmaba dhulka baan isku sii daynaya labadii waalid kama sii ducaysan manuu ka fasax qaadan goordhow waa la oranaya meel hebla ayaa lagu haystaa hooyadii aan hadhiyo markaa habeen iyo maalin murugadeedu ay dhamaanaysaa qaar adeerkaysa wadooyinka iyo maheeradaha u dawarayo oranaya ilmahaygiiba halka lagu haystaa waxa weeyaan kama sii ducaysan taa waxa ka daran qaar waxa weey fikirkoodu leexday oo waxa weeyaan oranaya jihaad baanu tagaynaa
dagaal baanu tegaynaa diintaan u gargaaraynaa sida maaragtay kuwan meelo ka mida waxa weeye dadka Soomaalida ee muslimiinta ku qarxinaya ee ku leynaya dhalinyaro badan oo diin u abtirsanaya ayaa oranaya waxa weeye may waalid loo sheegi maayo halka waa jihaad oo waxa la yiri culimada qaar baa yiri waxa weeye lagama fasax qaadanaya war hadalkii rasuulkeenu hayna calayhi salaatu wasalaam jihaadkii xaqaa baynu haynaa halkeebuu ka imanaya ninka maanta oranaya nabi maxamed oo sidaa yiri labadeedii waalid oo xaaladooda ilaahay og yahay qaar baa waalidkoodii oo sariirta saaran oo xaaladooda ilaahay og yahay buu oranaya meel baanu jihaad tagayaa hadduu jihaad gaal tagi lahaa wanaagsanaan lahaydaba waxba way ka fududaan lahayd ciddu ku jihaadaya waa dad muslimiin oo laa ilaaha illa allah leh taasina waxayna tusinaysaa walaalayaal aayad darrada dad badan haysta oo waxa weeye diinta ku qaloocatay waxaa ka mid ah walaalayaal aadaabta looga baahan yahay labada waalid inuu qofku iska ilaaliyo inay waalidkoodu cadhoodaan inuu cadho waalid kasbado maxaa yeelay hadduu waalidku cadhoodo wuu habaartamaya hadduu habaartamana habaarkiisu wuu dhacayaa marka dhibaato badan baa ka dhalanaysa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri saddex duco waa la aqbalaa shakina ma laha بمعنى وحويان دعاء هبارنا وين نقطة دعاء قفك الله دعينا وين نقطة لكن تنهبار كيف الله تشيده محيك لين صدح لا هبار إلا أقبله ودعوة المظلوم قفك الله قدرية هي إلا الظلمية أم بنفتي سلا الظلمية أم بحولي سلا قد الظلمية أم بحقي سلا قد الظلمية هدو هبار تمو حتى قال هدوي ولا أقبله يا هبار كيس قفك الله ويكون عيسى طلبات ودعوة المسافر قفك مركو مسافر يهي دعاء ودعاء والله أقبليا لذلك قفك مركو مسافر كنت لين دعاء بتصلوي وناكسنتها دتك لو دعاء وحاكم ذا ودعوة الوالد على ولده هبارك وهبار تما والدك الميس هباره يقولوا دعاء يا ابن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك إلا إسكايل عليه قول والدك كدك دقين إنه أبدك سهباره المهلة وإن له كسبنين wuxuu waalidkiisu ku habaarayo aad iyo aad muhiim u tahay walaalayaal qiso aad u caana qisatu jariir ayuu maartay wax weey nabigu sallallahu alayhi wasallam ka waramay nin cibaado badnaa oo meel ku cibaadeysan jiray oo har iyo habeen tukan jiray oo maalintii dambe hooyadii ay u timid isagoo salaadii ku jira oo tiri hebe tureyjow suu yiri wax weey ma hooyaday baa aqbalaa ma salaadaan aqbalaa salaadii buu iska sii watay markii labaad maalin dambe bar kale ku soo noqotay isagoo tukanaya saytiri jureyjow soo yiri waxa weey hooyadii baa aqbalaa mise salaadeeda sii wata salaadii buu sii watay markii saddexaad bay u timid haddana sidii buu isku qabtay wuxuu yiri waxa weey salaadii buu sii watay way habaartay habaaraan laakiin weyneen waxay tiri intaana dhiman ilaahay dumarka xun ha ku tuso wajigooda halka uu ku jiro ku cibaadeysan jiray maalintii dambe nin baa jiray meesha uu ku jiro ku cibaadeysto ariga raaco la seexan jiray oo meesha isna u soo hooyeen jiray ninkii baa gabadh ruux dumara ayuu meel ka helay oo uu faraxumeeyay uur bay qaaday go'do markay uu mushay baa leeyahay xageed ka keetay ilmahan say tiri ninka guriga ku jira waxa loo maleeyay adoonkii saalixa ahaa dadkii waxa weey intay soo kaceen oo budadkoodii iyo ulahoodii iyo waxoodii ay soo qaateen hubkoodii ayay u yimaadeen meeshiiba way ku dumiyeen markaa buu maxaa dhacay sayna waxa weeyaan waxa soo maad sameyn ilmihii yaraa oo la sido ay uri kan bay noo sheegay cidda dhashay ilmihii rabi ilaahay ka hadashii aabaha waayabu ku yiri sida aabahay waa jirahaas markii baa isagii la iska daayo la badbaadiyay oo waxa weeyaan ayna gurigii dahaban kaaga dhisna sidii hore ku celiya maxaa malalayl ku jira qofku waxa weeyaan haduu waalidkii xataa cibaadada mubaaha amba mustahabka uu ka doorto itixaam buu waxa weeyaan ku dhacaya waxa kamid ah walaalayal waalidka xaqooda iyo aadaabta inooga baahan yihiin inaynu adeegno intaynu adeegi karno nabiga nin baa la tashaday oo yiri hooyaday ayaa kala tashanay dagaal inaan tagaan doonaya lugaheeda laazim buu ku yiri jannadu halkaas ayay ku sugan tahay
waxaa ka mid ah xaqaygu nagu leeyihiin inaynu u ducayno marka ay dhintaan kadib oo dembi dhaaf ilaahay u weydiino waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saddexda camaleen goyn wuxuu ku daray waladun saalixun yadcuu lah qofka ilmo wanaagsan uu ka tago oo u soo duceeya sidoo kale nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon wanaagsan oo jannada ku jiro darajadii uu taagnaa darajo ka sarraysa kor loo qaadaayo markaa uu yaabayo ilaa meel buu deganaan jiray jannada ka mide marka la dallacsiiyo ayuu yaabayaa oo odhanayaa annaa lii haadihi tani halkay iga timid darajadan aan soo gaadhay sideen ku gaadhay markaa baa la odhanayaa biistikfaari waladika laka dembi dhaafkii uu ilaahay kuu weydiinayay ilmahaagu ayaa darajada ku soo dallacsiisay halkan ku soo gaadhsiiyey ilaahay ubadka inooga dhigo ubad baariina oo inoo soo duceeya waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalada aadaabta laynooga baahan yahay inaynu waalidka kula dhaqanno inaynu wax ka sadaqadaysano marka ay dhintaan kadib waxyaalada loogu samafali karo waalidka haddii waxa weeyaan ilaahayba kaa oofsaday kaa horreeyeen in aad wax u sadaqadaysato waqfi aad u samayso ceel u qod berkad u qod masjid u dhis madrasad u dhis yacni waxa weeyaan wax khayriya oo ajarkay aad ugu niyooto ayaga ayaad u samayn kartaa nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey oo yidhi hooyaday way dhimatay waxaanan ogahay buu yidhi hadday in yar sii noolaan lahayd oo kelmad ay ku hadli lahayd way sadaqadaysan lahayd haddii aan sadaqad u bixiyo asharkeedii ma helaysaa oo ma loo qorayaa nebigu haa buu yidhi haa wixii aad ula baxdo yacni waxa weye ajarkii waa gaadhayaa waxaa ka mid ah waxyaalada waalidka lagu aadaabta inooga baahan yihiin marka ay dhintaan kadib in la xidhiidhiyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodii iyo dadka ay isjeclaayeen aabbahaa dad asxaab buu lahaa hooyadaa asxaab bay lahayd dadkaa waynu ilowna maalintaa waxa weeye waalidkaa inoogu dambaysa laakiin in la xidhiidhiyo waxay ka mid tahay samafal aad waalidkaa u samafalayso nabigeena calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi binu cumar binu khadaab ayaa waxaa la yidhi madiinu ku noolaan jiray laakiin maka markuu tago wuxuu lahaan jiray dameer intuu gaadiidka weyne uu wato iska dhigo uu danihiisa ku soo qabsan jiray oo uu ku soo adeegan jiray iyo cumaamad uu markaa madaxa markaa ku xidhan jiray maalin asxaabtiisii oo la socda ayaa waxay ku soo baxeen nin reer miyiya oo iska danaysan dani ka muuqato cabdillaahi binu cumar dameerkii uu watay uu saarnaa ayuu hoggaankiisa u dhaba suu yidhi qabo cumaamadii madaxa u saarnayna wuu soo qaaday ayadana xidho buu yidhi qaada buu yidhi wanaa ku siiye raggii la socday baa yidhi maxaa ninkan waa nin reer miya wax yar baa ku fillayne maxaad sidaan u samaysay suu yidhi ninkan ma garanaysaan ninkan aabbihii ayay saaxiibba ahaayeen aabbahay cumar binu khadaab nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna min abari lbir samafalka ka ugu mudan waxa weeyaan silatu rajuli ahla wuddi aabiih qofku inuu xidhiidhiyo dadkii aabbihii ay isjeclaayeen waa samafalka ugu weynee waalidka loo sameeyo sidaa daraaddeed aabbihii baa cumar la saaxiib ahay oo sidaabaan anuu xidhiidhinayaa ugu dambayn walaalayaal waxaa ka mid ah xaqa iyo aadaabta waalidku inooga baahan yihiin markay dhintaan xabaashooda in la booqdo oo loo soo duceeyo nebigu sala allahu calayhi wasalam xabaashii hooyadii buu tegey waxaanuu yidhi waxa weye ilaahay baan dembi dhaaf u weydiiyo laygama aqbalin waxaan markaa waxa weeyaan dalbaday inaan siyaarto waa lay fasaxay buu yidhi sidaa daraaddeed inaynu booqanno weeyaan waxaa ka mid a walaalayaal in waalidka magaciisa loogu yeedho magaciisa aan loogu yeedhin oo laga ilaaliyo markaa waxa weeye kelmad aan markaa waxa weye aanu jeclaysanahayn sidoo kale inaan la hor soconin amba la hor fadhiisan oo ixtiraamka waalidka la ilaaliyo waxaa ka mid a inaan sabab loo noqon waalidka wixii cay iyo aflagaado u soo jiidaya in laga ilaaliyo mid baa laga yaabaa inkaan qabaa oo dhibaato badan samaynaya oo mar walba la odhanaya ina hebel baa sidaa sameeyey ina hebel baa waxaa xun ku kacay
إن هبل باساكو كاي أم بقف دادا الأفلقات ديسو ويقولون والدك يا أفلقات ديان انت وحلو باهانتي ولا ليال إن آد ليسكا إلاليو إلهي بن ويديسينا سبحانه وتعالى إنه نقو أرساق وسمى فلك والدك إنه وافجي آدابته ونكسين والدك إنه كل دغنه ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن خلفاء الأربعة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا أرحم الراحمين اللهم إنك كنت غفارا اللهم إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.